haddii aynu in yar dib xusuusta ugu celino sanadkii 1995 waxaan xusuusanaynaa in kombiyuutarka gacanta ee laabtoobka uu aad u foolxumaa qaab ahaan miisaankiisuna cuslaa sidoo kalena qiimaha lagu iibin jiray uu aad u sarreeyay kombiyuutar gacmeed aad u ballaaran culus qaadkiisuna yahay MB iyo halka inta GB la dhaafay loo gudbay terabyte oo halkii TB uu ka badan yahay 100,000 oo GB ayay dadka lacagta lihi ku bixin jireen lacago aad u badan si kastaba ha ahaatee dabeecadda tiknoolajiyada ayaa ay tahay in xawaare aad u sarreeya ay ugu socoto dhinaca isbeddelka iyo casriyeynta waxa ayna maraysaa in maanta kombiyuutarkii gacanta uu noqdo mid aad u khafiif ah aad u qaad weyn isla markaana si fudud oo dheeraynaysa shaqadiisa u gudanaya waxaa intaas dheer kala duwanaanta iyo quruxda uu mid kasta ahi kan kala dheer yahay oo maalin kasta soo kordhaysa marka aad dooranayso kombiyuutar ha ku dooran qurux ama qiimo ee ku dooro shaqada aad u isticmaalayso shaqooyin kala duwan ayaynu u isticmaalnaa kombiyuutarka sidaa awgeed marka aad laabtoob iibsanayso waa in aad marka koowaadba jawaab u haysaa waxa aad u isticmaalayso ma in aad filimo iyo fiidiyow ku daawataa ma in aad howlo xafiis ku qabataa taas oo u badan qoraallo mise waa in aad farsamo ahaan u isticmaashaa sida barnaamijyada samayntooda ma in aad internetka un ka gashaa mise waa intaa aynu soo sheegnay su-aasha labaad ee ay tahay inaad isweydiiso waa jeebkaagu intee uu jarayaa dhaqaale ahaan waayo lacagta aad ugu tala gashay inaad kombiyuutar ku iibsataa waa tan go'aaminaysa nuuca kombiyuutarka aad iibsanayso marka aad labadaas su'aalood jawaabtooda hesho tallaabada xigta waa inaad raadiso kombiyuutarka ugu fiican ee ay goyn karto lacagta aad haysato waana qodobka ugu muhiimsan cimriga bateriga maadaama muhiimadda koowaad ee laabtoobka loo qaadanayo ay tahay guurguurista iyo qaadashada waxaa lagama maarmaan ah in aad niyadda ku hayso in bateriga iyo tayadiisu ay muhiim tahay waxa aadna si gaar ah u eegtaa saacadaha ay shirkadda bateriga samaysay ugu tala gashay in uu ku shaqeeyo dabka halkii mar laga buuxiyo adiga oo niyaddana ku haya in saacadaha ay shirkaddu sheegtay uu markasta ka yaraanayo waxaadna ogaataa in dhumucda shaashadda laabtoobka aad qaadanayso iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay sida brosesarka iyo graphics processor dhumucda in laabtoobku cuslaadaa waxa ay meesha ka saaraysaa ujeeddadii koowaad ee markii horeba laabtoobka loogu baahnaa oo ah qaadista iyo la guurguuristu inay fududaato waxaase aad ogaataa in mar kasta oo howlgudashada kombiyuutarkaagu sii casriyowdo siina badato dabka uu u baahan yahayna inuu sii kordhayo sidoo kale waxa aad kombiyuutarka u isticmaalaysana waxa ay saamayn ku leedahay baterigiisa dhinaca kale markasta oo unugyada bixel ee shaashadda kombiyuutarkaagu soo saarayso sawiradu markastoo ay sii casriyoobaan soona bataan muuqaalada quruxda badan ee ka soo baxaya ay ku lamaanan tahay awoodda kaydka korontada ee baterigaaga oo hoos u sii dhacda